البورجي يسوق بورجي هسه لو مقامين يا رياكشن صعوني لقى مثلا كره يا مكالذي يا براروغيو البحر كان اسمعي نقصر وحا نقطع مرقان كيو نجيبي قف اول سعتين هدو بكان نقضو دوينا ملحق قبتدوي انا كبودو oo waxa weeye banaanka u turto maaha isagoo 3 bilood kaliya Mareykan joogay ya oo halka maxaan ku yiraahdaa hatta laba xiniyood aan ku tagine ya isxambaariyo soo dhufasho ku tagay ninba ma beensan ninba ila soo wuxuu yiri warninkii macaan la ahaa Mareykan ugu yimi waa maqlay waa la socday baa markaas wuxuu yiri warshadii libaa ka shaqeyn jiray baa odaygu lagu soo tuuray oo gacanatan madarqinta la ku shita takalana la sib ku shita oo saale qof dal kale aan dalxiis ku tagin maxaa ku raadayay aqoon ka sokorsan tagin dadka kula daaro oo dulsaar ku noqo ugu tagay teel baxnimo maaha waracala sheedaan ku yaalo waa idin salaamay maanta waxa kawaanka inoo saaran oo reaction shafshafadiisa wata aan ka bixin doonaa heesta dooda badan dhalisay ee sida TikTok ila YouTube sida loo qaada dhigayo ee uu soo qaaday fanaankeenna weyn nimcaan hilaac ee la magac baxday ka raystay bukaanadii ila maalintii heestaas soo baxday dhabanadan hay waxaan isweydiinay war wiilka bukaanada la tusay cudurro noocay ah bay qabeen marka dhinacan u qaado garan waayay waa u duceeyay waxaan idhi kaduudiye kadeed iyo kuwa la kala qaado ilaahay ugama dhigo heesatan heesii nimcaan maaha dadka Soomaaliyeedna istaahil kuma aha shan laaxin oo aan ku qawaday baan halka idin kula wadaagaya kuwa oran doona war heesta odagu ku tarax tagay war waxaan uba hadii cabdi good loo geey lahaa oo micihiisi madooba oo sac ugu qaban lahaa 500 oo laaxin inuu sac uga soo dhufan lahaa saasan baan intaan iscaanaata waxaan idhi war in culayo war wiilku ka caysho waxa weeye reaction kan waxaan uba odayga dhowr dubaqo inay ka gaari doonto marka hadde shafshafo iyo samirsiin hadaan laga daba geyn hadda taas waa dagaal odaygu nin dagaal galana maaha hadda odaygu waa inaan shafshafo siino marka Yurubaan jooga dhogor geela ma hayo lacagna feeriyahan baa u dhashayo keen ma ahay hooba ma aqaani subscribe baa waxaan u siinayna marka shafshafo odaygu YouTube cusub uu samaystay hilaac music baa la dhahaa war subscribe u saara intaas waxa weeye ha ku tageen waaniki shiin culayaha caan dhalay oo kule war xaq ma aha ina ay daawato subscribe ka isiin weydee war anigana subscribe ka ay taabo videoga si share galay maqaaxida ku shidane like iyo comment-gana soo badiya oo soo tuura horta anigu ma suureysanayn mana filayn nimcaan baa Mareykanka intuu amaano Soomaaliya oranaya hawa adag iyo dhibaatooyin iyo waxyaabo xilli ka sheegaya anuu taa horta xasha wujud marra meesha ima online umana fadhiin waxa weeye Mareykan waa la socotaa baa iyo waxa laga sheegayo waxa weeye Yurubo de cayriska guro amaha meel inta marka ku cusub tahay waxbarasho lagu geeyo lagu oranayo wada halka wax ka xariiqa maaha maalinta aad soo degto waxa lagu leeyahay gaarigaaga isku waxa la yiraahdaa habeen timaado subaxeeda qofka Soomaaliga ah warshad hilib u dhex taagan yahay ilaa gaari ma wadi karo aqoon kale male waxa weeye mindibu saa'ul haadaya markaas waxa mararka qaar kood sooranaysa dadka halka ku nool markay kaaga sheekayaan war Soomaalida ma xukun gooniya u dhacay inay nolosha iyo shaqadaba warshad hilib ka soo bilaabaan ma dhooto ninba ma beensan ninba ila soo wuxuu yiri warninkii nimcaan la ahaa Mareykan ugu yimi waa maqlay waa la socday baa markaas wuxuu yiri warshad hilib ka shaqeyn jiray baa odaygu lagu soo tuuray markaas waxa ay soo baxay ninkii ma ogay ninkii dhaldhalay ninkii inuu masrax istaaga maahay subax aan maxaa ku raashay shaqo kale u kaleyn oo gacanatan madarqinta la ku shita takalana la sib ku shita oo saale markaas waxa la istaajiyay meel kale reebta la dhaho warshad digaag bay ahayd marka digaaga saa u soo baxo halka raqabada ku dhufanaya oo madaxa iyo jirka digaaga saa u kala tuuraya oo laba u kala saaraya ma beensan ninka runiyo beenti waxa tahay ma aqaan laakiin Mareykan markaan arko waxa laga sheegayo de waxaan ri waa reglahaan jiray weeye geel laba wada jir soo wada mar qof kasto oo Mareykan jiray waxa weeye hawlaha waa ku soo bilaabaa baa la yiri heesta markaan u guda galno laxanka ugu horeeya oo heesta aan ku qawaday oo aan ku qaadan waayay baan idin tusayaa aan shil heesta baxay hawadii adagay bartay noloshii cusbayd
waxay ii furtay buug kaloo waxba iska kee bedelay ka baxay hawadii adkayd de waxay ila tahay hawada adagu sheegaya waa Soomaaliya waxa uu nolosha cusub ka hadlayaan waa iska dareemaysaa nolosha cusub Mareykan ee uu hadda galay weeye qof walba oo Soomaaliya oo qurba galay waxa weeye marka la hadashid oo weydiisid wuxuu ku leeyahay dal shisheeye waa dareen ku joog qof dalkiisii hooyo yaa qawadayo wax ka sheegaya oo dalka uu dulsaarka ku yahay marka tagay amaanaya aniga ima soo marin mana arkin idinkuna de waa comment ku soo qoraysan hada hore u aragteen aniga waxa isu kay qaban weyday nimcaan oo aan garanayo nin dhalinyaro ah shaadira wadanku u shidnaa hadii uu yiraahdo waxa weeye show baan qabanaya oo masrax baan soo istaagaya ummadda Soomaaliyeed sharaf ay u haysto ay saa u soo wada bixin jirtay oo meel la istaaga laga waayi jiray ama 30 lagu galo ama 20 lagu galo waxaaba intuu saa u gacan mariyo kiishada ugu dhici jirtay dawladna aan ku qatanayn oo darajada aweydeen ka helay oo la yiri waa gudoomiyaha hoobaladii waa bari inuu aqoon jirnay la yiri gudoomiyuu u noqonaya oo halkaana dawladdu ku maalayay oo miisaaniyadda ugu jireen oo mar walba oo la dhaho bayna miisaaniyadii u kordhiyay waxa ka dhignay nimcaana dhaadhaca iyo mushaharku u kordhayay ilaa shaqaaluhu dhan waxa kor lagu qaaday ninkii nolosha nooca ah ku jiray ba Mareykan oo rafaadka yaala ogtiin markuu tagay Soomaaliya la biino ku soo dhuftay oo yiri hawo adag baan ku sugnaa marka waxaan is weydiiyay nimcaankii saaca haduu cabanayo oo Soomaaliya jawi adag iyo hawo adag ay ku haysatay bal dadka masaakiinta ah kuwa maqlaama dirgaanka ah dhalinyarada baaga muddada ah kuwa aan xirfadda iyo hal abuurka ay maxaa ku raadayay dadkooda ku dhexgalaan oo ku baartaan aan lahayn kuwaasi maxay ku caban doonaan bari maxay ku caban doonaan taasaan is weydiiyay waa waxyaabaha heesta keenay inaan yaa dhaho aniga igama gadna tan kale wuxuu yiri waqtigu barigu adkaa barwaaqan hadda galay waxa bata guulihii nimcaan ilaa waxa weeye anuu hadda inuu Mareykan tagay oo Soomaaliya ka tagay guul ma arko dalkiisii buu ka tagay waa ku sharfanaa magaca iyo milgaha iyo maamuska aan ka sheekeynay buu ku lahaa Mareykan buu tagay oo hatta cabashada waxa Mareykan ka socdo waaba la socotaanba dadkii dubka madoobaal lahaa waa luqun jibaara lagu dilayaa waaba la socotaanba waana dal shisheeye si kastuu Mareykan u qurux badan yahay si kastuu u daara dhaadheer yahay si kastuu u xoog badan yahay si kastuu dhaqaale badan u leeyahay taadiga dalkaaga maaha waxa weeye lama huraan waa cawska jiilaal mar walba adiga waxa ku huran gurigii hooyada oo ah Soomaaliya dalkaaga ah ba adiga mar walba ku huran marka nimcaan markuu fanka soo galay maalintii ugu horeysay waan TV ka daawado inanka oo iska yar oo doo iska garanaysa Soomaaliya xaaladeedu waa nacaltula ala duruuf baan dhaha waxa weeye dhalinyaradu baaga muddo iska u badan yihiin dawlad ka warqabtaa ma jirto qoysaskii Soomaaliyeedna dawa iska ogtiin burbur baa dhacayo wax shaqaysta oo de jikada saddex waqti loo gala waa iska yiriin badde dadkoo dhan baa isaga badan wax isaga hadda lagu maagay ma jirto dad waa wax nolosha waa wax nolosha Soomaaliya iyo civil warkaas u sababay weeye oo Soomaaliya ka siman tahay weeye maalintii ugu horeysay TV-ga markuu soo fadhiistay wiilka oo hadda saas ma madow yahay wasaasuba ku cad yahay wasaasuba ku cadaaday carabku wasaa ku noqday waaga xabad dhuxran xul amado dhowr jeer waxaan isir markaan arkay wiilka war ka daay wiilka mikrofoonka xogaaga energy-ga ya haduu saaka canjeela saliid soo cunay war ka saarinay ka daay wiilka baari bala idin heestay ka daay mikrofoonka markii loo dhibay buu saa u daranay markaas waxaan warkan hadii kan mustaqbal buu leeyahay maalintaas aan fanka horumar degdeg uu ka sameeyay waa la socotaan geesu ka soo bilaabay jaranjaro dag subaxii alla keeno oo waa u bariyo wiilka plus baraaci waxba u kordhiyay horumar buu ku jiray guul wuxuu ka soo bilaabay nolosha asfal saafilin taad buu ka soo bilaabay haddana xagee maraya xidigaha soo maraya meel horumartay buu maraya marka waxaan garan waayay isagoo 3 bilood kaliya Mareykan joogay oo halka maxaan ku yiraahdaa hatta laba xiniyood aan ku tagine isxambaar iyo soo dhufasho ku tagay sidee horumar ku gaaray maxay tahay maanta haduu ahaan lahaa nin halka ka soo dhacay magafa soo maray saxaro soo maray dib badan la soo kulmay waxa oran lahaa dawaa runtii war tacabkii iyo meeshii hoog iyo biyo laga sheekeynayay buu ka guuleystay maanta guul buu jooga ma oran lahaa laakiin isagoo war tigidka soo gooso fiisa halka ka soo qaado ku soo bood taala soo raac Ethiopia reerlan ku bedelo halka ka soo deg airport ka loo taagnaa taas horumar baa okay wuxuu yiri burqade wabiyaal xirnaa
jacayl xuni waa bele ka rasta bukaanada waa garan waayay bukaanada wiilka loo tusay ya waayadii dambe adduunyada waa kadeed badan iyo waxyaabo badan baa ay sheegay bukaanada la tusay wiilka maxay yihiin ya waa garan waayay taa maskaxdeeda waa qaadan weeday haddii qofka jacaylku waa ku xumaan karaa maxaa ku iraahdaayay qof isbartay waa ku xumaan karaa waxa weeye laakiin qof bukaan kuma noqon karo bukaanna تلسكما يابو حنونكو هدي عذر إلهي قف وكانو توا مقادير كو هبستويه وحلو عيبسدو يا وحلو فقوقو يا وحلو عايو يا وحلو قودو معها سيدا وقفك حنونكاس إنك استفاد لك هذا وقول دعي وأدنى بريكو قول دعي كرا مركا حنون لسكو عايو يبقتل لسيقورو وحوي أنه تاس منا عرق منا مقال قفا وسعتين هدو بكان نغضو توا إنا ملحق بتدويه إنا كبودو oo waxa weeye banaanka u turto maaha marka halkaasna waxa weeye laacan kala ku jira baraarugayo ilbaxay tan ugu daran waxa weeye wuxuu yiri baraarugayo ilbaxay marka anigu ilbaxa ka maqnaa waa garan waaye qofku inuu dalkiisa intuu ka tago dal kale oo dad leeyahay tago ilbaxnimo maaha xataa dalmarnimo maaha dalmarnimo ma aha qofka la amaanayo la leeyahay war qofkaas waa qof dalmar la leeyahay macnaha waxa weeye waa qofka dalkiisa magaalo tuulo goboladii soo kooba oo meel kasta ka tagay waa horumar waa loo sacabiyaa laakiin qof dal kale aan dalxiis ku tagin maxaa ku iraahdaayay aqoonka sukursaan u tagin dadka kula daaro oo dulsaar ku noqo ugu tagay dalbaxnimo ma aha nimcaana meesha ka leeyahay heestan heesiisi maaha isagana waxa yeeshay waxa weeye ilbaxnimada ka maqan oo nimcaan u dhutinayay oo maanta u soo kordhay maxay tahay soddon jir waxa weeye ayaabeeso shaatira shaqaysanaya ilaahay hibo maxaa ku iraahdaayay iyo codka arkaysaan oo ku manaystay dhalinyaradii Soomaaliyeed wadanka uga yimi haddii markuu halka daaraha isku sawiray oo yiri waa ilbaxnay soo ilbaxnimada u qaadan maayaan qurbe la tago oo hadda soo ma gafasho isu wada dhiibi maayaan hadda bini aadan helay bashaasho ii furfuran cid kale uma baahan karo beertin xariista waan galay waxa weeye horta waxa weeye de wiilku daayir laba noolayn xayawaan laba noolayn mar walba isagana bini aadan buu ahaa bini aadan buu ku dhex jiray haddii uu maaragtay qof fiican lamaane fiican oo gabar ma sha Allah haduu helay waxa weeye uu ku amaani karaa xurur cayn baan helay qof gaar ah baan helay waxa rabto dheh oo gabar lagu amaani karo waa ku amaani karaa laakiin haddaan bini aadan helay sidii inuu xero daayir hore ugu jiray halkaasina waa laaxin kala weeye bini aadan uma baahan karo iyaduna waa laaxin weyn qof adduunka isku fulani ma jiro mar walba garab u baahan tahay aniga halka iga daawanaysaan daawashada ay daawanaysaan iska dhaf iyadoo aan share loo tigin iyadoo aan like loo tigin iyadoo comment aan loo tigin iyadoo subscribe aan loo tigin daawashada ay daawanaysaan waa qiimeyseen waqti ay siiseen de waxa weeye keligay ma istaagi karo halka ma istaagi karo keligay baa hadlaya hadaa iraahdo oo halka ka soo hadlo te maqaaxidu albaabada isugu xirmaya meel ma gaarayso waa ninkii sheena culeyaha musharax shil kureebay oo kule reaction kimaanta inta soo eegyahay tan inta barnaamij kala mid ku kulmi doono waxaan ku dhaafayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh